حاجة سوف اليسوع هايسا في عون الحمد لله خير وركسي والله ما شاء الله الحمد لله maalmahan wajigaaga ma wanaagsan xaaji maxaa familka kale ma cilad ka jirtaan aan dhankii ugu soo xilada ma qabee wallahi ya badan tahay wax badan jiro stress ku badan faad maxaa cilad sayid ma jirtaa buuqa si jiray akhi xaaji wallahi maalmahan sida hormatiyad waa caatooday ma stress ka taagan yahay gabadha kale waa faanti sida adiga macnaha cilad keenana marka anima wax saadid dhankaaga macnaha ka tuganaysaa ilaahay taakano sida hore ugu ma ahan ilmihii way dayacday adina shirkiga aniga ima roona way dayacday si hore ugu ma ahan xaaji adigu waa inaad isdajisaa ciyaalkaagan waa inaad ogaataa ciyaalkaagan ka fikir ana hadda culays keenana wallahi ma aqaan waxaan kula hadalnay adigu adaa ma ogtahay noo dhaxaya gabadhaas marka adaa laga rabaa in ayada dajiso oo qanciso ciyaalkaaga si ka dayacmeen waxaan kula hadlay malaha Soomaaliya oo dhameeyaan ninka reerka adigu waaye labada reer waa in aad xalisaa ninkii halkaan intii ahaa waa ka yaabanahay naagaaba la aroostay oo yiris ehbe maxaa aan leeyahay rabaa hadii la macaawa tookadeedii waa soo socdaa waa diyaarsan yahay gowdhe anigana ma rabo horta markaan waa soo karaahsadayba wallahi inuu qof ii imaanayo iyo qof kale xataa inaan kala ogeyninba caruurtiisana caruurta anaa dhalay ku xumayn maayo laakiin asaga waxba igama gelin guriga waa sidiisii guriga hooyadiis camal leh waay ha soo galo ha baxo naa kale ma joogto gurigaaniti halkaas naag oo kaliya taa ku ekaada waxa saacadaas oo kale tooreega waa asagii bal afiiriyo qurxay ewer maxaa qurux taa ka tagtameynayeen taa ka tagtameynayeen qurux soo saaka hadda la kaama tagin soo guriga maxaa ka yaala guriga ay Soomaal goorma gurigaaga noqda war ilaahi yaqaan anaga naqaan ilaahay hadalkaaga tamara waa ani af Soomaali dhan aad ku hadlaysid hadda waxa ka baqaa muslimka banaanka hadlay af Soomaaliga ina umalay hadda way maxaa sameeyay maxaa igu haystaa la maxaa kale ku dhiman naag Soomaali raacin naagta baad og tahay waa xaaskeyga waa kuushay sama ana xaaskaaga ma yaado soo isqabna sameeyay ilma kala dhalay oo guri wada wanaajinay guri wada joogo sameeyay labadayda markii hore ha laakiin soo reelka Soomaali dhaqanayni maxaa hadda kiiska imaaday maxay tahay walaal ani hadalkaaga markaa maqal xajiina ay u kacday maxaa u baahan tahay maxaa ku bedelaa guriga maxaa ka maqan waxba ay bedel ana noloshaada waa ku sii waxa u baahan tahay wax kasta waa dunida waan ku dhameeyay maxaa kale ku dhiman abo waxba iga dhiman ma iga maqasho maxaa dhibka keen waay inanta miskiin waa la qabaa gurigeeda dhaqanaysan ani inta waxa soo qaadaysa ani adigu wixii naga dhaxeey way naga dhaxeeyaan koode maanta u socotay waxa keentay ayadoo gurigeyga inaa ku soo hadal qaad ragga afar bay ilaahay u balay hadu ku leeyahay dadka afar la guursaday laba leeyahay xaaska miskiinta gabadhaas wallahi hadal way dhaqday taaginta gabadh miskiin iyo filinkaas ana hadda igu bilowdid aw daar duula kale ay soo daway albaab gurigan ma idaafe mise waa ku dhaafa aniga wax badan aan ku silsilciye ada fahmi weysay kawde ma waa dareemay adu qalban ada hadda kugu sheegaya gurigan way kaaga dhamaat wax ka yaala male borsadaada yirista ka sii qaado gurigu naga ana Soomaaliya horta ma rabi kawde caruur baan ku ay caruurtuna ka xisaydo kayso maxaa kala doona hooyada waa adigay hayde isku kay dhaaf gurigan ayaga anaka isku kay waa adigay guriga iga fijinaysa way gurigan ma ka tagino adig si ugu tagay guriga soo aniga imaanay habeen kasta guriga walaal ani war ma rabi kawde caruurtaada islaantaada macaanta u geyso anigana kana ay ugu nabadgelin weydo waa kaaga tagaa ها رسول الله وتعالى حق الدنيا horta rasuul ma fahanti بسم الله مو سعيدة كان yaalkii aan ku soo wada عيالك حاجة عيالك أنا إيكا سوي معها yaalka kulli oo ku keenaa hal ma أي قدر labada dhan waan soo wada لما لا حاجة هذا واحد شيء وحي يوكل ثم هو معي maxaa عشان وصلنا raashin ma soo cunto والله wax lay diyaariyay markii gurigaas waa tigay حاجة لما أنا تكون ديار سأمجد وحقه كرنايا jannada سأمجد دعونا كرنايا jannada isku imaanaysa insha Allah jannada isku imaanaysa إن شاء الله حاجة جعلك أنا أخبر بكون سنو وقت عيالك هذا محل هذا waa ku nin xada imaad wado
حاجة إنك استوى لكن عيالك أبو عيالك من الصار أنا وجوجا أنا دماني دماني مركز أبى استرس كذا أبى اسمه استرس بقى نيجاتيف معنا عيال في هاي خير شيء حاجة عيالك أنا وجوجا أنا هو يضرب أبوي بني خير شيء حاجة فرق ستة وحير عشان نصوص ديارنا يعني بدنا كل الله أنا قادر البيت Thank you.